labadii xisbi qaran ee mucaaradka ahaa iyo xukuumaddii oo ilaa shalayba wada hadal iyo maaragtay wada tashi badan ka yeeshay arrimaha inoo taagan ay ka mid yihiin doorashooyinku iyo xaaladaha guud ee siyaasadeed ee mandaqadda ku soo kordhay sidaa darteed sidii dhaqanka Soomaaliya noo ahayd oo mar walba ay dhibi dhacdo ama tala soo gudboonaato laga gudbi jiray wada tashi aynu ku soo meel dhalinay 70 sanadii Soomaaliya jirtay waxaa la isla gartay laba qodob qodobka koowaad oo ah kii doorashooyinka iyo maaragtay sidii maaragtay doorasho loo qaban lahaa waqti ugu habboon waxaa la isla gartay in dib loo howlgeliyo saddexdii guddi ee saddexda xisbi qaran ka kala socday oo dib u bilaabi doona wada hadalkoodii iyo inay ka wada hadlaan wixii caqabado ku gadaaman doorashooyinkaas golaha deegaanka iyo golaha wakiilada qodobka labaad ee arrimaha siyaasadeed ee mandaqadda iyo guud ahaan caalamka ku soo kordhay iyo horumarka dalkana sidii maaragtay horumar loo gaarsiin lahaa iyadana waxa uu ballamay madaxweynaha iyo labada guddoomiye xisbi yaa insha Allah waxa uu ballamay hadda soo socota si loo lafaguro oo tala la wada leeyahay qaranka weeyaan hoggaanka maalinba ninkii loo doortaa ha hoggaamiyo haddana waxaan ka simanahay ama inoo dhaqana inaan tala isku mid ah oo maaragtay dalka lagu dhisayo oo duruufaha adag laga baxayo in laga wada tashado sidaa darteed taasina waxaa u ballamay madaxweynaha iyo labada guddoomiye iyo intii u soo raacday maaragtay u garaba taasina si gaar ah labada qodob baa la isla gartay shalay ilaa maanta markii uu shirkaas soo socdeen waxaa kaloo halkan aan ka cambaarayna runtii Cabdiweli Gaas oo ah ninka guddoomiyaha maamul goboleedka madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya Puntland oo ku soo xadgudbay xuduudda Somaliland saacadan aynu hor joognaan leeyahay wuxuu soo gal leeyahay maanta duhurkii magaalada Baran gobolka Baran waxaan u aragnaa arrintaasi xadgudub qaran iyadoo caalamku la socdo dhibaatada maanta tukaraq ka taagan ee dagaalkaasi sida meesha ka dhacay ay ka bilaabantay gardaradii hore ee ka timid dowladda federaalka ah ee wasiirka qorsheynta ku yimiday Baran iyadoo tii maanta hawsheedii lagu jiro oo beesha caalamka iyo dowladaha jaarkeena iyo igad ay dhexdhexaadin nagula jireen oo meel maaragtay aan la isla meel digin waxa maanta mar labaad aan u arkaynaa in gardaro labaad tahay iyo inuu mar labaad dagaal kale ka furo meel labaad waxa weeyaan anagu ka dowlad ahaan xukuumad ahaan waxaan leenahay waajibka naga beegan baan ka qaadan doonaa waana arrin maaragtay aan arkayno in dagaal dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ay ka midaysan yihiin si ay u carqalad galiyaan deganaanshaha iyo maaragtay nabadda ka jirta Somaliland waxa kaloo jira issue aad loo wareejinayo oo Soomaaliya dhexdeeda ah oo ah arrintii xeerka kufsiga kaasi waxa weeyaan waxa ka hadli doona wasiirka diinta oo qaafta oo ya ka hadli doona markaan hawsheeda ka baxnay labada guddoomiye ka hadlaan iyaguna ayaa ka hadli doona laakiin waxa leeyahay arrimaha weeyaan la purification waxa laga dhigin wixii danta qaranka iyo diinteena iyo dadnimada wax u dhimaya hadday xitaa si khaldan wax u dhaceen oo waxa la sixi doona insha Allah waxaan ka hadli doonaa intaas wasiirka diinta oo qaaf aad iyo aad u mahadsantiin